gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye axmed cabdi xuseen axmed cabdidheero shir jaraa'id ku qabtay xarunta dhexe ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa sheegay in doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ka qabsoontay 31 bisha May ee lasoo dhaafay guud ahaan dalkani jamhuuriyadda Somaliland ay ahayd midaan hore loo arag waxaanu sheegay gudoomiye axmed cabdi xuseen axmed cabdidheere inay ahayd doorasho aanay cabaneyn asxaabta xisbiyada mucaaridka gudoomiyuhu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu hambaliyeeyay ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee dalkani jamhuuriyadda Somaliland taasoo ku hambaliyeeyay muddadii ay socotay doorashadu sidii ay u sugayeen ammaanka dalka ugana qayb qaadanayeen inay ilaaliyaan oo meel uga soo wada jeestaan wax kasta oo khalkhal gelin kara intay socotay doorashadii dalka ka qabsoontay ammaanka guud ee dalka ugu dambeyntii gudoomiye axmed cabdi xuseen axmed cabdidheere waxa uu ka hadlay asxaabta xisbiyada mucaaridka ee u cudiyay wadani gudoomiyuhu arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta waxaan isugu kin yeedhay sidaa ogsoon tihiin wakhti dheer iyo muddo dheer kadib waxaa inoo soo gabagabowday doorashooyinkii Somaliland ka dhacayay ee isku sidkanaa doorashadii golaha baarlamaanka iyo doorashadii deegaanka marka ugu horeysa ilaahay baan u mahadnaqaynaa inoogu soo gabagabeeyey nabadgelyo iyo doorashooyinka ka dhaca dalalka Afrika ama adduunka baan idhaahda qaarkood doorashadii ugu quruxda badnayd inay ka dhacdo jamhuuriyadda Somaliland ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba mar labaadka waxaan halkan ka hambaliyeynayaa dhammaan shacabka reer Somaliland ee laga soo bilaabo diiwaangelintii siday diiwaangelinta u galeen safafkii dhaadheeraa iyo waqtigii ay qaateen iyo waqtigii kaarka la qaadanayay safafkii dheeraayay ka dambeeyay iyo maalintii doorashada iyadoo maalin ay aad u kululahayd cimiladu ay kulushahay meelaha qaarkood safafka aan marna ka bixin dalaayadaha iyo karaatoonta madaxa isaga dhigayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ujeedadoodu dadka waxay ahayd in hebel soo saar iyo hebel ha soo baxo ha noqdo iyo reerkiinu ha soo baxo oo ha noqdo midnaba inaan ahayn sidaan aaminsanahay waxay ahayd inay ka midho dhaliyaan jamhuuriyadda Somaliland geedi socodkooda dimuqraadiyadda inay ka midho dhaliyaan waxyaabo kale ugu lifaaqnaadaan oo ah hebel soo saar laakiin ujeedada weyn ee ay kala haayeen ay bacadka u taagnaayeen Somaliland ciidankeeda xukuumaddeeda mucaaridkeeda ay gacmaha isu qabsadeen waxay ahayd guusha maanta aynu joogno hada xusbi ahaan xusbiga kulmiye wuxuu aad iyo aad ugu farxsan yahay oo aan oran karaa iyo xukuumaddiisuba doorashadaas siday u dhacday oo aan caalamkiina kala qayb qaadan jiray hadday dhaqaale tahay iyo hadday nabadgelyo tahay labadaba ciidankeena iyo jamhuuriyaddeena Somaliland iyo shacab mucaaridii muxaafid aynu isu kaashanay doorashadii way noo soo gabagabowday goli deegaanka iyo goli baarlamaanka waxa inoo taala sida nabadgelyada ah ee ay noogu soo gabagabowday inaynu ku tashanno oo inu dalkeena maalin walba meel u qaadno inta maanta aan halkan idinku yeedhay waxa weeyaan mahadnaqaan shacabka reer Somaliland u mahadnaqayo xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ee uu hogaaminayo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo u tafaxaydatay inay doorashadaas sidaa u dhacdo taariikhda ay u galaysaa haddaynu nahay xisbiyada qaranka waxayna la gudboon in taa maanta aynu yeelay aw dalkeenu hore ugu socdo taariikh bay noqonaysaa wax badan baa isbedelay doorashooyinkii dalka ka dhacay way ka duwanay waxyaabo badan oo aan la filayn baa soo baxay waa Afrika doorasho ka dhacda ama adduunyadaba aan idhaahdee oo aanay mucaaridku cabanin doorashadii inoogu horreysay weeye يعني halka iska taagtay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi oo hogaamiyo waa halkaas aad ka garan kartaa waxaan jeclaan lahaa inay ka timaado xisbiyada mucaaridka oo ay yiraahdaan uga mahadnaqaan
halkay iska taagtay xusbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu halkay iska taagtay doorashada inay si wanaagsan oo aan turxaan lahayn oo aan riixin lahayn oo aan waa naloo xoog sheegtay lahayn inay u dhacdo isbahaysiga ay labada xisbi ku dhawaaqeen dee xaq bay u leeyihiin inay waa xisbiyo mucaarida inay isu tagaan dimuqraadi baynu ku jiraa cidna looma diidayo waxa igala weyn waxaasoo dhan haddaanu nahay xusbi kulmiye waxa nagala weyn guusha ay Somaliland gaadhay mucaarad iyo muxaafidba taanu anagu haddaanu nahay xusbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa ku faraxsanay waxa weeyaan sida ay doorashadii inoogu dhacday iyo halka aynu maanta marayno iyo sida aynu ugu bislaanay dimuqraadiyadda taasaa noo muuqata waxyaabaha yaryar ee kale hoose ee laamahan kala baxay waxaan aaminsanahay inaynu gunta ka midaysannahay mucaarad iyo muxaafidba cabdikariim ciise cabdullaahi cabdikariim